qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Hargeysa gaar ahaan qaybta nafaqeynta ayaa waxay wacyigelin ku saabsan ka hortagga shuban biyoodka ka sameeyeen goobaha ay isugu soo barakaceen dadka xoolahoodii ka dhameystay abaarta baasan ee ka jirta gobolka Saraar kuwaas oo ka qaxoonti ka sameystay duleedka magaalooyinka Caynaba Wadaamago iyo Og sidoo kale ardaydani waxay wacyigelinta ku saabsan dhanka shuban biyoodka ay ka sameeyeen qaar ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Caynaba xarunta gobolka Saraar waxay nagu soo kordhisay warka iyo baleeftaba ku haysan cudur shuban biyood oo dalkeena hore uga jirin dhex calaamadood baa ugu waaweyn cudurkan oo qofka lagu gartaa waxa lagu gartaa matag fara badan ayaa qofka lagu gartaa casiraad fara badan oo kala go'ol lahayn shuban fara badan oo istaagayn matagu qofku markuu ka dhamaado waxa la wixii biyo jirka ku jiray oo dhan baa qofka ka soo baxaya marka waxa lagu qiyaasaa halkii saacba markuu qofka ku bilaamo halkii saacba 1 litir oo biyo jirka ka baxaya marka maadaama waxa sidaa harista ay yahay calaamadaha haddii qofkii aad ku aragtaan ku yar iyo ku weynba goobta caafimaad ee idinku dhow qofka la gaadha hadduu yar yahay hadduu weyn yahay iyo hadduu qof dhexdhexaad yahay goobta caafimaad ee idinku dhow qofka la gaadha groupkii aan wada soconay ee ardayda jaamacadda Hargeysa iyo dhammaan heetay laba barnaamij oo soconay oo ahaa wacyigelin oo xanuunka shubanka oo bilaamay oo aan wadnay wacyigelintiisii iyo barnaamijkii labaad ee ahaa nutrition assessments oo isaguna aan DB'yadii iyo aan marinay kirir baan tagnay Wadaamago baan tagnay markaan Wadaamago soo dhameynayna Og baan tagnay Og maantana Caynaba wacyigelintii aan iskuuladii iyo ku soo sameynay iyo maanta ay DB'gii ugu dambeeyay aan joogno ilaahay waa mahad leh maanta waxaan noo dhamaaday safar 4 casho nagu soo qaatay aan kaga soo baxnay magaalada Hargeysa anagoo matalayna jaamacadda Hargeysa iyo dhamaanba waxaan u soo kicinay gobolka Saraar waxaanu tagnay deegaano badan oo ay ka sameeysan yihiin dad barakacyaal oo DB ku sugan dadkaas oo aanu ka soo wacyigelinay xanuunka shuban biyoodka oo maalmahan iyo dhawaanahanba si xun ugu soo kacayay gobolada bariga waxa kale oo barnaamij baan u wadnay ahaa inaanu xaaladooda nafaqo darro dumarka lactationka iyo caruurta 5 sano ka yar inaanu bal xaaladooda nafaqo darro aanu waxa weeye bal u soo kuurgalno iyadoo aanu ku xogti ku celin doono wasaaradda caafimaadka oo ardayda iskuulka Horyaal runtii waxa weeyaan xanuunkan marka la leeyahay shubanku xanuun aad u khatar weeyaan oo bulshadeenu way dhayalsataay oo inta badan waxa ay yiraahdaan qofkii markuu aad u shubmo waxay oranayaan qofkii calool istaag buu ama markii hore qofkii calooshba dhaaqday laakiin xanuunkii inta badan ma tixgeliyaan taasina waxay keenaysaa in qofkii magaranaysa si khatar ah uu shubankii ugu socdo oo ugu dhaco deetana hadhow qofkii halka dhinto maayarka magaalada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf gudoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar Jaamac Muuse Faarax iyo mas'uuliyiinta guddiga abaaraha ayaa xubnahan uga mahadnaqay wacyigelinta ballaaran ay sameeyeen taasoo tilmaameen inay ku soo beegeen waqti uu farabaan xanuunkaasi ku hayo guud ahaan dadka ku dhaqan deegaamada gobolada bariga Soomaaliland ardayda la soo booqatay wacyigelinta wada wacyigelintan waa loo baahnaa waayo gobolkay waxa ka socda shuban biyood baa ka socda dhowr qof oo horena way dhimatay qaar kalena hadda way jiifaan dhakhtarka nadaafaduna waa yama sanitationkuna waa ugu muhiimsan run ahaantii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin annaguna waxaanu jeclahay inaanu qaadano wacyigelinta aad noo soo gudbiseen waxyaabo la idin sheegay soo garmaysan waxa weeyaan number 1 waa inaad ka shaqeysan nadaafadda ta iskuulkiina ta gurigiina ta suuqa meesha qashin ku aragtaan waa ina idinka oo aan u eegin halkan maxay tahay waa ina qaadaan idinku halka seexanaysaan iyo halka wax ku baranaysaan iyo halka wax ku cunaysaan intaba waa ina horta nadaafadda iska kali garaysaan halkan maanta waxaanu ku soo dhaweynaynaa dhalinyarada jaamacadda Hargeysa oo wacyigelin ballaaran ka wada gobolka iyo degmooyinkiisa iyadoo ka dilaac cudurka shuban biyoodku aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa inay dadka wacyigeliyaan iyagoo waliba maraya kaamamka qaxoontiyada dhammaan dadweynaha gobolka Saraar waxaan leeyahay maanta way aragtaan shuban biyood baa dhac jira dhulkiina waxa galay biyo dhaamamkii meelihii biyo gali jireen fariisan jireen hal iska ilaaliyo biyaha dadkuna had iyo jeer ku dadaalo inuu fariisa nadiifiyo jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.